السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كلنتي وعن ونكسن تعوضي الملك استوديو دي كجوكتان كسر دوادا نتورك ميديا برودكشن وبرنامج كي يكون شيكو يشيكو قيمتي سيل بعض داودي أنا قيمت أنا بعد ما توحين بسوق على ضنا عفر شيكو كلا عصب وحد الله إن هاي ربدا كري سو دوادا دعوة شوعة واي داوديال sheekada koowaad aynu ku bilowno sheekada koowaad maanta waxay ka hadlaysaa waa nin doqona oo dameer laga xaday nin doqona baa beri wuxuu lahaa laba dameer buu ahaa marka labada dameer waxay ahayn laba dameer oo aad u dhuudhuuban oo caata deetana waxaa ka hor yimid nin dameer buuran wata markaasuu wuxuu ku yidhi waar dameerkan buuran seebaad u cayilisay oo aduu dee u naaxisay anigu labadaydu waa caate markaasuu ku yidhi isagoo dee ku dheeldheelaya ninkii doqonka ahaa war doqon baa tahee labada dameer isku dar marka labada dameer intaad isku darto markaasay waxay soo baxayaan dameer buuran deetana wuxuu yidhi seeba iskugu dara deetana wuxuu ku yidhi nin farsamo yaqaana ugee deetana ninkii farsamo yaqaankaa buu ugeeyey wuxuu ku yidhi labadan dameer isku dar lacagna waan ku siinaya deetana wuxuu ku yidhi imisaad siinaysaa wuxuu ku yidhi 200 baan ku siinaya oo shilin dameerahana isku dar 6 bilood kadibna waan kugu soo noqonayaa buu ku yidhi deetana kii farsamo yaqaankaa wuxuu sameeyey dameerihii buu kaxeeyey wuxuu u geeyey reer buu geeyey meel barwaaqa labadii dameer buu naaxiyey markuu labadii dameer naaxiyey ay 6dii bilood dhammaadeen ayuu kii doqonkaa soo noqday deetana wuxuu ku yidhi waar labadii dameer si labadaadii boqolna waatan eho labadii dameer oo isku dartay si uu ku yidhi deetana kii farsamo yaqaanka ahaa dameer buu siiyey labadii dameeroo dee wada naanaaxay buu dameerna siiyey kii kalena uu la hadhay labadii boqolna sidii buu kaga qaatay sheekada koowaad saasay ku dhammaatay sheekada labaad aynu u gudubno sheekada labaad waa gabadhii gacanta laga gooyey marka nin suldaana baa wuxuu dhalay gabadh buu dhalay deetana waqti jiilaala ayuu wuxuu u diray 10 midho moofaa roodhi moofaa u diray wuxuu yidhi 10kaa midh soo iibi 10kii midh markii soo iibisay iyadoo dariiqa maraysa oo socota ayaa waxay aragtay nin miskiin ah la kulmay ninkii miskiinka wuxuu ku yidhi uu bariyo wuxuu ku yidhi roodhida wax iga sii deetana midh bay siisay 9kii soo hadhay bay odaygii suldaanka ula tagtay odaygii baa ku yidhi naa waa sideedii roodhida 10 midh baan ku dirnay waxay 9kani deetana waxay tidhi miskiin baan siiyey dee ugu deeqay wuxuu ku miskiin baan siiyaa oo gacanteed ku siisay dee gacantii midig buu ka jaray gam sheekada labaadna intaasay ku dhammaatay sheekada saddexaad haddaynu ka gudubno waa nin madhargaa nin baa berigi waxaa dhacday reer buu soo hoyday marka waxa u timid gabadhii reerka ayaa u timid oo markaas bay ku tiri waar maxaa kugu dhacay bal xaaladaada ka waran suu yidhi waar waan xanuunsanayaa hooye bal dee cunto ii keeno calooshaa layga hayaayo dhakhtar baan doonaya inaan u tagee markaa nin wadaadaan doonaya inaan u tago ninkaa wadaadkaa maslaha ku soo daweeyo markaa saasay arrintaydu ahayd markaa wuxuu ku yidhi markaa cunnadii baan cuni kari waayo dee calool istaag bay ku dhaco cunnadii wax cuntaa maba cunayaba ama teedkii baa iga xidhmay markaasay dabeetana gabadhii xoogaa saliida ayay u keentay ninkii deetana gabadhi inanteedii ayay u tagto waxay ku tiri hooye orado ninka roodhi u soo iiba uu ku cuno saliidda roodhidii markii ay inantii u doontay intii roodhidii ku maqnayd ayuu saliiddii sii cabay markuu roodhidii u keentay inantii ayay aragtay ninkii uu saliiddiiba cabay say hooyadeed ku tiri dee hooye ninkii saliiddiiba uu cabeeyey dee maxaan ku siinaa roodhi qalalan baan siiya deetana markii dambe haddana saliid kale usoo dhibtay ku tiri ugee intii ay saliiddii kale usoo wadibu haddana roodhidii sii cunay de markii inantii u tagtay tiri haddana hooye roodhidii uu cunay maxaan ma saliid keliyaan siiya markii dambe dabeetana islaantii baa waxa u keentay ninkii caana iyo waxa weeye wax kale dee isku dardartay iyo subag iyo bariis iyo waxbay ayaa u keentay caana iyo bariis ayay u keentay iyo subag ay isku dartay deetana waxay ku tiri hooye intaa cun
haddaad waxa weeye soo bogsatana markaad dhakhtarka u tagteed ninka wadaadka u tagtay ku soo daweeyo halna soo marin bay tiri waayo adigoo waxa weeye xanuunsanaya ayaan ku dhargi weyne baa adoo caafimaad qaba tan la soo marta ka war wanaga tag bal ana soo marin bay ku tiri marka sheekadana waxa la dhahay ninkii madhargaa intaas ku dhamaatay iyaduna sheekada afraad ee ugu dambaysa waxa weeye waxa la dhahaa waa nin 3 duco la siiyey nin baa beri wuxuu guran jiray waxa weeye qoryaha iyo waxa saxaabadu guran jiray oo nin miskiin ah oo saaxiib ciyaal u ahaa markaa qoryaha soo gurto deetana gurigiisa iska tagi jiray markaa maalmaha kamid ah isagoo qoryihiin soo gurtay qoryihiisita ayaa aad buu daalay deetana qoryihii intuu meel dhigtay ayuu ilaahay subxaanahu wa tacaala baryay deetana wuxuu yidhi ilaahow faqriga naga saar oo khayr isii markaas buu wuxuu arkay nin timo weyn oo aad u qurux badan oo dhar cad sita markaas buu wuxuu yidhi ilaahay wallahi ducadaydu waa aqbalay deetana wuxuu yidhi waxa lay siiyey 3 duco buu yidhi 3 duco lay siiyey buu yidhi markaasuu ninkii miskiinka ahaa markaa ninkii dharka cadda waa ku yidhi waxa lagu siiyey 3 duco oo la aqbalayo deetana ninkii intuu gabadhiisii u tegay buu ku yidhi ma 3 ducana la siiyo la aqbalaye maxaynu ka dhiganaa bal aduu tiri dee inoo tali 3 duco haddaynu ilaahay weydiisano waa lala aqbalayaa maxaynu ka dhiganaa deetana waxay ku tiri muddo koowaad horta waxaad ka dhigtaa bay tiri anigu waa kan waan gaboobo 80 jir baanay in dhalinyaro laga dhigo deetana wuxuu yidhi ilaahay 15 jir ka dhig markii deetana laga dhigay bay deetana way ka baxsatay ka carartay markii 15 jir laga dhigay deetana tii labaad buu isagu ilaahay ku baryo ilaahayow ay ka dhig deetana ay baa laga dhig deetana markaasuu carruurtii hayn kari waay carruurtii baa dee ku qaylisay oo waxa weeye carruurtiiba keligii ku noqday deetana markii dambe ilaahay baryo ilaahayow 80 jirkeedii ku soo celi deetana sidii baa 80 jirkeedii lagu soo celiyey sheekada intaasay ku dhan tahay